السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي سيتين إيه في عنتين أنا آدي آدي وفي عنها إذا كانوا حارجينا يا سيداس إسكفي عنا وفي عنتين أو ما أنتم حاربا إن أني محل عليو أو محل لها أو عنده إلهي كسكو سبسكرايب كي هرتكو إلكو كل عام سبسكرايب كي هرتكو مهم ويه هذه شيء dad markay ku soo bataan qofka aqoon dadka badan way yaqaanaan dadka dhalinyarada way yaqaanaan laakiin dadka anigoo kale inta oo gadaal ka yimid aan rabaa inaan u sharaxo subscribe-ka wuxuu yahay waxa waaye inaa qofka oo batanka subscribe-ka qoriyaa u taabatid qofkaas waxay u faa'iideynay marka qofkaas wuxuu u faa'iideynay dad badan markay u imaadaan dad badan oo u fiirsanaya YouTube-ka markay dad badan ku fiirsadaan bishii waa la xisaabayaa halaha qofood oo ku fiirsatay hadda anigoo kale inta kun qofood bay ii fiirsatay maanta kunkaas waxaan ka helayaa adiga $10 wax ka yaraan helayaa marka xisaabta aad isku dhufsa marka haddii ay ku fiirsato 100 qofood 100 qofood ay ku fiirsato xisaabta aad la isku dhufsa bis marka dhinacaas taas ugu tageynaa yaan isku mashquulinin waxaan rabaa inaan maxaa la dhahaa ani dhaho jazaakumullahu alf khayran shakiran inaan ii sheegaa rabaa ani horta maalin kasta meeshaan nii soo fadhiista dirshadan yaraadii soo fadhiistaa expert skin diga dad oo qatar ah skin diga aniga waxa aqaan ni sheega marka waxa aqaano oo ku fiicanahay waxa waaye horta qof waxaan ahay oo jecel nolosha jecel qof kasta wuu jecel laakiin aniga zaid markasta waan sheega nimashadana xaq waaye insha Allah dhinaca kale qeyrana ugu horeeyo rabbi subhanahu wa ta'ala aanu joogo adduunka aqrab oo nacaawinayo marka maxaa ani aqaana oo meeshaan iiga soo jeeda ani waxaan ii sheegi karaa cumrigeyga intuu jiray wixii aan soo maray dadka agagaarkayga waxay soo mareen experience kaas aad ii sheegi karaa marka haddii amaanta idin dhaho meeshaan ani ii soo fadhiisanaa oon dhaho adduunyada inaan aqaan haddaan ii dhaho waxaas run ma aha sababta ah wixii aan arkale aan ka shekeyn karaa oo dadka iga dhalinyar aan u sheegi karaa anigoo kale inta dartaan da'da aan jiro mar kasto YouTube-ka iyo Google-ka waxaan ka fiiriyaa dadka da'deedoo kale maxay sameeyaan over 50 maxay sameeyaan over 60 maxay sameeyaan over 70 maxay sameeyaan dad Soomaali ilaa hadda taariikhda ma arko dad weyn oo ka sheekeynaya waa arkaa oo ka sheekeynayaan nolosha ka sheekeynayaan waxay soo mareen wixii la soo maray ka sheekeynayaan laakiin dad wili ka sheekeynaya oo Soomaali ah ma arkin da'daasi dad waxay la qabto 50 jir qof soo dhaafay iyo wuxuu qabto 70 jir wuxuu soo dhaaftay iyo wuxuu qabto jid cusub aniga hadda maray waa oo dadkaasi dad aan banaanka soo fiirsadaa gaalada waa soo fiirsadaa waxaan ka baxsadaa wixii aniga ii ogolaanayso diinteedii ogolaanayso iyo nafteedii ogolaanayso ka qaataa oo muhiimka ah wixii kale dad laakiin aniga aan shaqo aan ku lahayn oo zaid oo iiga dhinacooda ah meesha iskaga tagaa danahayga uun baan ka qaataa saas adiga niga rajeynaya anina waxaan rabaa inaa wixii aan experience soo maray meeshaan igaga sheekeeyo oo danihiin aan ka qaadatiin marka waxaa waaye qof hadduu ku dhaho adduunka dhan aan aqaanaa waxaa waaye wax oo lagu daalayo ma noqonaysaa because haddii aad og tahay wax og tahay kasto wax kuu fiican yani nolosha waxay noqonaysaa caajis wax lagu caajisay noqonaya waxaan kasoo qaada nabi muuse calayhi salaam markii oo nin u shaqeeyo fircoon uu u yimid uu dhahay nin yahow waa lagu tashanoyaa waa lagu dili rabaa meesha iskaga carar wuu baxay ninkii nabi muuse calayhi salaam wuu baxay wuu ka cararay meesha uu tagay siduu u socdo ilaa iyo meel dheer markuu tagay uu geed iska hor fadhiistay oo meel dheer wuxuu ka arkay laba gabdhood oo biyo ka dhaansanaya ceel laakiin saf ku jiro rag xooggan oo xoolo biyo siisanaya ka horeeya wuu fiiriyey markuu fiiriyey gabdhihii hore ugu tagay meesha wuxuu yiri laba gabdhood walaalaha ay ugu tagay meesha wuxuu yiri maxaa meesha ka qabanaysid waxay dhaheen aabaheen waa nin waayeel ah annagaan marka usoo baxnay inaan xoolaha aan biyo siino dadkaana naga horeeyaan marka dadka naga horeeyaan markay shaqadooda dhammaystaan unbaa maalin kasta meeshaan ku sugnaa xoogoo siiyey nin xoog lahu ahaa oo dhalinyaro ah xoogoo siiyey biyihii oo u arooray gabdhihii oo maxaa la dhahaa waxay meesha danahooda ugu dhameeyey way baxeen asigana meeshiis geedkiisa iska fadhiistay waa nin safar ah soo lugeeyey gaajo guuri la'aan wax la'aan hayso bis ilaahay u sheegtay oo Allah subhanahu wa ta'ala u sheegtay oo wuxuu dhahay ilaah waa jeedaa in aniga xaalkayga suu yahay adiga maxaa la dhahaa iqaabil warku waa soo gaabinaa
marka markay sheeko saas ahayd gabdhihii way baxeen aabbahooda u tageen aabbihii u sheegeen waxay dhaheen nin xoog leh oo maxaa la dhahaa oo aamin ah baa meeshaas kusoo aragnay oo biyaha maanta noo soo arooray gabdhihii gabar ka mida usoo diray wuxuu yidhi bax u yar ayadoo xishoonaysa ninka waxay timid nabi muuse calayhi salaam u imaatay waxay tiri aabbahay baa ku rabo inuu kula hadlo aabbihii markuu u imaaday oo gabdhihii waxay u sheegeen inuu aamin yahay oo argi contractoo la galay yani qof og adduunka ma jiro wax la og yahay macnaheeda meesha ka timaada meeshaas waa qof wax og male ninkan dhibaatada haysay iyo markuu meesha imaaday ilaahay jidkiisa ugu furade marka waxaa waaye wuu yimid markuu yimid guriga imaaday contractoo la galay marka wadaad aabbihii waayeelka ahaa baa wuxuu yidhi nin saasaa tahay gabdhahayga mid ka dooraan ku siinaa contractan waxaa ku siinayaa 8 sano ilaa 10 sano contract ah inaa maxaa la dhahaa oo xoolahan igaga shaqaysid oo saas ay ahayd arrinta waayo yidhi sidii wuxuu ku helay nabi muuse calayhi salaam warka baa inagu daadinayne qisada inta ugu gaabin laynaga sheegaa bis nabi muuse calayhi salaam sidii wuxuu ku helay guur sidii uu ku helay shaqo sidii ku helay maxaa guri يعني سيفتي ولفكيس نفتيس وهلا مال أمان ونفتيس وهلا مركب حواية وإحنا جهرية مو أوجان كرنا دا أوجان وإحنا جهرية نرشوا معان ملها لكن مركز تحل الرباء إن أنا كأن سكون دينو إن أنا كأن محل هراء وسيس عنه مركز تنا قلوب تاني إني كجرت الله سبحانه وتعالى قرني كفيرنا ونلوج ذا وحكستان صبرنا نلوج ذا مورا إله إسكو حرنا مورا جعلك إلهي أن إسكو حرنا مورا محل أن إسكو حرنا cabsida ilaahay arinteedana way soo fududaanaysaa tasbiixdan haddaan sii badsano waxaa waaye sadaqa haddii aan haysan aan sii baxsanan waxaa waaye wixii naga maqnaa way noo soo dhawaanayaan marka saaxiibayaal waxaasoo dhan maanta waxaa idinku sheegayaa waxaa waaye nolosha experience waaye adduunka intaa ku nooshahay wax unbaa arkaysaa wixii aa aragtid dadka inaa la wadaagto waaye haddii aad dadka la wadaagtid wixii aa aragtid ama wixii kheyr aad dadka la wadaagtid ama wixii xun أديت هدي أو حكي قبل حتى قلبي كان عدد ماشي لقى جنبها هي إن أتاجنتها قف قبر أهينو كل كيس وحلا قاعد كان أتها حوا إلهي سبحانه وتعالى وجود أمر كميش على وجود فرقات محلها جود النساء أنا كسمع هذا أنا هاي أدي أدو حوقفي عنا هرتكو إن قرآن برانو الحمد لله شكر رب العالمين أدي أدو حوقفي عنا إن حجابك قاضنو لكن وحياله بدن أنا جنب قن وحياله بدن أو كم أنا جنب قن سيد الدون كنا يقوم قن توكله قف كامل مجرو waxaan naga maqan waxa waaye inaa isku naxariisano gacanta inaa isqabano inay qofkeena qofka kale uunan jiidin dhulka ku jiidin oo gacanta qabsado haddii aad chance heshid oo qof inaad ka faa'iidaysatid inaad ka faa'iidaysatid maaha inaad ka faa'iidaysan dad oo waxaan nahay ahlu quraan aan nahay dad oo dhibaato ku dhacdaan nahay dhibaatada ku dhacday jawaabteedana hadda waa arkoonaa ilaa annaka asaxnane ilaahay wax ma noo qabanayo marka alla subxaana wa tacaala waa qafuur raxiim qofku rabo waxa rabo siin karaa laakiin marka uu horeyso sababteed inaan la imaano waaye waa loo buuxinaa weelka marka weel weyn soo qaadanayna ilaahay ku baryayna ilaahay wuu loo buuxinaa waxa ugu fudud ibnaadka oo sameyn kara waxa taqaana kalmad leon oo ilaahay ku baryaysid tasbiix allah ومد الله لا مد كاربتت زمان كأنك أنا يراي دتك واوينا تسبح سنجرين ريزك ما قانو دتك لأن يرضى ما إنه تسبح سنجرين wax oo loogu talagalay oo ahaa malayna aan u maleynayni dadka weyn inay tasbiixsan tabu ilbaxay qofka aragtid wuxuu wataa tasbiixda wax lagu soo binaya farta ugu jirto ama tasbiix caadi wataa dhalinyaro soo naftooda bartagareynayaan qof kasta wuxuu rabaa inuu hor u sii socdo laakiin shaydaanka kala dhaayne waa naga khibrad badan yahay shaydaan annagoo naga soo horiyay nabi aadam alayhi salaam markii la abuurayay إبليس وأنا جالس هوري وحكوا جري محل ده نارتا ملائكته لنا ولا أنتوا نقولين محل ده عاس أنتوا إله يكونوا قولين معناه هذا وحاول يقف كاوي وكا إكسبيرينس بدنيه ونجا إكسبيرينس بدنيه لكن أنا جاك قوة وينه الله سبحانه وتعالى أدونك ابن آدمك أو قوة وين الله أو محل ده أو إن محل ده حكمة بدن وإلهي سي مركا شيطان كيو نجا في أيدي سنين qof alaale iyo qofkii oo maxaa la dhahaa oo noloshiisa ee maanta meel ka leedato bariye toosiisa ka weysa qaado isbuuntay salaada duko la rakac extra ku darso ee maxaa la dhahaa tasbiixdaada qabso wixii afkaada kugu fudud soo qabso saliga nabiga allah ka dhigo allah amaan allah ka dhigo istaghfirullah allah ka dhigo
laa xawla walaa quwata ilaa billah allah ka dhigo afkaan inaa iskaga haysatid muhiim waay tan ugu weyn oo dhibaatada nagu haysana waxaa waaye shaydaanka xasid waaye meel kasta oo kaa soo galayaa haddii oo maxaa la dhahaa oo aad qof fiican tahay xataa muusikada kugu mashquulina hal mar maku dhahaya kaalo gaal noqo casi ilaahay noqo maku dhahaya laakiin meelo yaroo kaa garaacaya oo mashquul kaa dhigo maanta dhan haddoo muusig kugu mashquuliyo goormee tasbixsane maanta dhan haddoo xan kugu mashquuliyo goormee tasbixsane marka cadow weynaan qabnaa oo ka weyn ibnaadanka oo ka dhib badan oo xaasid oo naarta inaan la buuxina rabo marka aan iska ilaalino nafteena horumar aan uu sii kaxeyno qof alaala iyo qof kaa tahayba waxaan rajaynayaa allah subxaana wa tacaala raxmadiisa jannat alfardows aclaa inuu nagu geeyo kuwa ordan allah naga dhigo tasbiixdan aan badsano assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu